وشيكة يروقس عبد قيديدي موسى صودي halkani waa deer yar oo edab daran VIP calaashan oo ku taala dalalka dambe ee hotelka Iswaal bartamaha Muqdisho ujeedka halkan la isugu yimid waa in la kala saaro laba qofood oo in muddo ay haystay Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiidi Muuse Suudi yalaxu waa laba oday oo hore siyaasadda ugu soo daalay maanta waxa ay ku loolamayaan ma ahan siyaasad mana ahan kursi ee waa shay cusub oo aad la yaabi doontaan waxaan la jooga Muuse Suudi oo aad u malayso inuu foorjeesan yahay dulqaadirida haysata marka loo eego soo daahitaanka Qeybdiid Muuse waxa uu heliyay Salaad Cali Jeelo oo difoosaha koobaad ee odayga sidoo kale dadka agtiisa jooga waxa kamid ah oday bira ku booday oo marba dhinac u istaagay kaasoo dheera Axmed Daaci oo si daacad u taageersan Muuse Suudi arimahan man ka kudno halkii Cabdi aha uu dhuntay ayaa si cod dheer waxa uu yiri tarsan oo meesha foodo u taagnaa sida uu qabo Axmed Daaci hadda waxa dhagahayaga mar qoro ku soo dhacaya dhawaq u eg kii Yuusuf Indhacde oo horjooga ah kooxda Cabdi Qeydid هوريس يا عللاس أيها لبا برجكا ياري مستوى عبد واد مود إنو سريد كسو قباستي دلال كمدحيسا كموقضا آودد بلان مليهدين يا علي قاب أيها وداد جام كدغي أيها هذا الاسكوتوريس ugu horeysay waa markii ugu horeysay oo madal noocaan oo kala ay ka soo muuqdaan rag bari biraha isku afeysan jiray shoo nimanka horteen bay heshiiyeen gacmaha managa hubiseen ayuu hadal ka bilaabay Generaal Galaal oo xifaalinaya xirtii Muuse isagoo dhag la qabta lahayn ayuu ugu warceliyay Mungab waligiina qaraari jirteen wax kale la imaado wax yar ayaa hore loo dhaqaaqay waa qol kaale arag ah oo aad u diyaarsan oo ay yaalaan dhalooyin darbi ku dhakab ah ama flatis iyo ciyaar gacmeed PlayStation ilaan odayaashu way ciyaari karaan ma ciyaar wanaag nise booto badan iyo xifaalees dheer kadib waxa la soo fariistay kursiga casaaya dhalada hortiisa ahaa mid kasta oo kamid ahna waxa gacanta loo geliyay gacan ciyaareed PlayStation garsoorku waa barashira hiiraale sababta loogu dhiibana waxa iska lahaa Cali Geedi oo u arkay inuu dhexdhexaad ka yahay arintan labada oday yaan hadalkeedin ku daalinina labadii oday ayaa loo kala qaaday kooxaha ay PlayStation-ka ku ciyaarayeen Alxaaji Muuse ayaa gacanta birimada ah ku hormaray aliyaaya intermu ku jirta maha ayuu si codsi ku dheehan tahay Muuse u weydiiyay guddigii ha ayaa loogu jawaabay dhanka kale Qeybdiid waad u malaysto inuu xariif iska dhigay ayaa yiri war Muuse isboobsi anigu Milan baa wataay AC Milan vs Inter Milan Cabdi Qeydid vs Muuse Suudi ciyaartii ayaa la bilaabay ninba gacantiisa ayuu kursiga kula dhagay waxa xigay booto ay hawada isku marsiinayeen Indhacde iyo Salaad Cali Jeel kuwaas oo la safan labada dhinac weerarkii ugu horeeyay ee ciyaarta waxa helay Muuse Suudi balse kubaddu waxa ay martay meel hal yaard u jirta goosha waxa muuqanaya Axmed Daaci oo gacanta iyo birtii ku booday isla waay iyo Generaal Galaal oo canaananaya Qeybdiid oo Inter kabtankooda Javier Zanetti si qaldan ugu raacay Kaka oo kubad wanaagsan ka helay Massimo Ambrosini balse iska beerdareeyay waxay ciyaartu socotaba qaybtii koowaad ee ciyaarta ayaa la kala nastay iyadoo Cabdi lagu eedeynayo qalad badni iyo jabis aan micno lahayn taasoo keentay xitaa inay isku fakfaktaan Mungab iyo Xaf si ay ahaataba Cabdi ayaa isku difaacay inuu ciyaarayo kubad nuuci uu yaqaanay inkastoo la dhaliilay haddana kama qasneen oo qanacsanaantiisa ayaa u qayaxan waxay ciyaartu socotaba bahalna ceeriin ma daayo ragna cadaadis ma baajiyo Qeybdiid ayaa daba bilaabay falsafadiisii ku dhisneed dil doofaarka hase yeeshee Muuse ayaa kalkan qaraaray oo ka biyo diiday doqonnimada Cabdi gacantii ciyaarta inta miiska si cara ay ku dheehan tahay ugu dhuftay ayuu ku yiri mug cunug in xaad naqatay ee Cabdiyow adi iyo halkan basada diiran leh ee Galaal isla ciyaarta ayaa soo ilaatay waxaana banaday Xaaji Muuse oo adkeysan waayay forjada iyo fuduusha Cabdi Qeydid isagana hadal ka sii daba tuuraya Suudi isagoo leh waa loo soo ragbadsan doonaa ciyaarta waxayna iskula dhaqaaqeen dhanka iyo Sheekh Cabid iyagoo isla falanqeynaya arrimaha siyaasadda iyo baarlamaanka aqalka sare oo xilligan ay ka wada tirsan yihiin just for joke waa kaftan iyo sheeko laga mala awaalayo in markan xaaladda nabad ay ku sii saqayso waxa qoray Cabdiwahaab Axmed Cali aniguna waa Nasrakiin Xaashi Nuuro idin leh Soomaaliya nabad ha ku waarto amiin amiin